السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. soo dhawaada walaalaha qaaliga ah. Haddii ilaahay ka raali noqdo muuqaalkan waxaa looga hadli doonaa barakada qur-aanka. Waxaa idinla wadaagi doonaa qisooyin. Waxaa xaqiiq ah in qur-aanka ilaahay qofkii akhriya ee la saaxiibo inuu darajo sare ku gaarayo adduunka iyo aakhiradaba. qur-aanka wuxuu u shafeeco qaadaa qofka akhriya maalinta ugu dhibka badan. wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam asiyaamu wal qur'aanu, soonka iyo qur-aanka yashfacaani lilcabdi, addoon bay u shafeeco qaadi doonaan. waana midkii badin jiray maalinta qiyaame. waxay dhahayaan yaquulu siyaamu, soonkii baa dhahaya rabbi ilaahayow manactahu dahaamu, ilaahayow cuntadii waan ka hor istaagay, washahwaatu iyo doonista naftiisa binahaari maalintii, fashaficlii fiih, allow ergaan u ahaye iga aqbal ergada oo addoonkan jannada iige. wayaquulu lqur'aanu, qur-aankale waxau dhihi doonaa manactahu, ilaahayow waxaan ka hor istaagay manaama bileyli, habeenkii baan hurdada u diidi jiray, fashaficlii fiih, ee iigu shafeeco qaad. wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam fayashfacaani, way ergadoodii way shaqeynaysaa oo waa la ajiibaya. qur-aanka marka wuxuu imaanayaa isagoo socdo oo sida qof oo kale loo arkaayo. nabiga sallallahu alayhi wasallam baa yiri yajii'u lqur'aani, qur-aanka wuu imaan doonaa yowmal qiyaamati, maalinta qiyaame, fayaquulu waxauna dhihi doonaa yaa rabbi xalliih, u labis ilaahayow. qofkii uu shafeeco qaadayay buu ku wadaa. wuxuu leeyahay ilaahayow maanta ha ka muuqato karaamadii aniga isiin jiray. fayalbisu taajal karaamati, markaasaa waxaa loo labisayaa taajkii karaamada oo madaxa loo saarayaa. qur-aankii markale wuxuu dhahayaa rabbi zidu, ilaahayow u siyaadi, markaasaa waxaa loo xirayaa xulladii karaamada oo dhammaystiran. waa labis ka samaysan diamond, dahab, luul, fido. waxaana lagu dhahayaa akhri qur-aankii aad akhrin jirtay. markastaa uu akhriyana kor buu u soconayaa, meeshii uu qur-aankiisa ku istaago ama uu kaga dhammaado ayaana hoygiisa noqonaysa. waa darajo aad u sareysa. adduunyadana waxaa lagu helaa wax walba oo lagu doono. qur-aanka akhrintiisa fakhrigaa looga baxaa. waxaa jiray wiil dhalinyaro ah, aad iyo aadna u tabaryaraa, oo shaqo la-aan iyo dhibaatooyin dhaqaale ay haysteen. laakiin waxyaabaha aadka ula yaab kale waxay ahaayeen waqtigiisoo dhan maadaama uu shaqo haynin wuxuu gelin jiray qur-aan akhris. ilaahay baa mahad leh, ninkii rid kheyr qabtaa alla u furay. wuxuu helay shaqo aad u wanaagsan. weliba shaqadii iyo kuma ekaanin noloshiisa inuu dhaqaale ahaan kor ugu kacday, xagga cilmigana ilaahay baa u furay. waa nin sheekha oo ummadda jeceshahay, oo nolol ahaan isbedelay. maasha allah, ilaahay u siyaadiyo. qur-aanka barakadiisa ma qarsoonto. qofka ilaahay wuxuu siinayaa firfircooni, nuur aan damaynin buu ilaahay qofka qalbiga u gelinayaa. wax walbana waa loo fududeeyaa. xitaa qofka haddii uu walaac iyo murugo haysato, qur-aanka waa looga baxaa. hadduu xiran yahay xitaa ilaahay wuu xoreynayaa qofka, oo xaqiisa wuu soo iftiimin, oo meel unbuu alle u yeeli uu ku baxsado. waa idinkaga sheekeeyay hadda ka hor nin xirnaa oo ku riyooday isagoo qur-aan akhrinaya, kadibna si caadi ah u bilaabay qur-aanka akhrintiisa. ilaahayna uu albaab u furay oo xabsigii laga sii daayay. haddii uu yahay qofka qof xanuunsan, uu ku caafimaadaya shaki la-aan. waxaa jirta qiso iyadan aan u malaynaya inaan mar idinkaga sheekeeyay maamo uu ku dhacay kansar, oo lagu yiri waxay ku jirtaa stagekii 2 biyaa la yiri, ma ogi miskii 3 buu ahaa. waxaa loo sheegay dadkeeda inaan wax sidaa laga qaban karin, haddii ay India la tagaan wax ulna soo dhihi doono. laakiin ayadii waxa ay tiri meelna yaa la geyn, haddii ay tayada gashayna cidna ima joojin karto. haddii adduunyo aan wax ku leeyahayna ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa,
quraankiisa hal igula dadaalo oo wixii kharash ahaa ee igu bixi lahaa waxaan rabaa in anigoo gurigeyga joogo la igu quraan saaro. Maamada markii waxay ahayd reer miyi baadiye deganaayeen dadkii ehelada ahaa baa wax isku soo dardaray lacag la soo ururiyay la rabay in lagu qaado intii lagu geeyo ayaguna xoolo baadiye lahaayeen. Almuhiim waxaa la bilaabay marka in la quraan saaro joogtaa looga dhigay in muddo ah baa lagu waday. Marka waxaa la yiri meel baadiye ay deganaayeen waxaa la yiri xarag kasta ama meel kasta marka ay degan yihiin lafaa loogu guuraya, yacni xoolaha ay maamada ku quraan saarayaan ee ay qalanayaan baa markii lafahooda meesha ku bataan way guurayaan mid kale degayaan haddana sidii oo kale haddana way ka guurayaan mid kale degayaan. Ilaahay ma haddii maamadu waxaa la yiri sidii ruux hurday oo toosay oo kale bay isku bedeshay. Way fiicnaatay way ku wadeen quraankii lagama joojin ilaa ay qof caadi ah ka noqotay oo wax walba markii hore dareemaysay ay ka bogsootay ayaa quraankii la joojiyay. Ayadiina waxaa lagu celiyay dhakhtar waxaa la yiri maamada waxba ma qabto. Meeshii laga baari jiray markii lagu celiyay waxaa la yiri aad bay u yaabeen waxay yiraahdeen ma la hubaa inay ayada tahay qofkii waraqahan lagu baari jiray iyo maamadan ma isku ruuxba. Marka quraanka Ilaahay baa noo sheegay waa daawo waa raxmad. Qisada kale aadka u cajiibka ah qof baa waxa uu qabay xanuunadan ruuxiga ah marka wuxuu yiri waxaan laazimay juz'amo inaan isku akhriyo si joogto ah. Intii aan waday waxaan marba markii ka dambeysay dareemayay caafimaad laakiin ma joojinin. 7 bilood markaan u dhawaaday baa waxaan xaqiiqsaday inuu xanuunkii iga guuray markaan aan ahay qof caafimaad qaba waana joojiyay. Laakiin markaan bilaabay waxa dareemi jiray inuu xanuunka marba markii ka dambeysay intii ka sii yaraanayo. Waxaa jeclaan lahaa qof kasta oo xanuunadaas la dhiban haddii uu yaqaano in uu juz'amo iskula dadaalo. Anigu waan ku raystay hadda waxaan ahay qof aan weligii xanuunsanin oo kale. Marka waxaa u rajaynaynaa qof kasta oo xanuunadaas la dhiban inuu asna isku akhriyo quraanka inta uu yaqaano. Quraanka oo dhan baa daawo ah. Waxaad u baahan tahay inaad joogtayso inaad Ilaahay yaqiin ku qabto xanuunka Allihii keenay qowlkiisii weeye quraanka. Ducadana waa inaad badisaa inuu Ilaahay kugu caafiyo sidoo kale waa inaad rajada wanaajisaa oo aad aamintaa inaad ku caafimaadi doonto. Waxaa bishaaro ah in juz'amo dadka oo dhan ay yaqaanaan dii ayada quraanka laga soo xulay la isku keen waxaa laga yaabaa qofka inuu ayadan iyo meesha ay ku jirto aqoonin marka culays bay ku noqonaysaa laakiin juz'amo waa la wada yaqaanaa. Haddii aad lacala garan weydo waxaa jira xal kale oo waad dhageysanaysaa salaada subax kadib ayaad dhagaha gashanaysaa adigoo niyadaadana joogto intaan xasbi Allah wa ni'mal wakiil xasbi Allah wa ni'mal wakiil carabka ka dhahayo oo ku celcelinayo. Waxaa kaloo la sheegaa suuratul Baqara qofkii joogteeyo ee muddo bil ah ama ka sii badanba haddii uu wadi karo akhristo oo si joogto ah u wada haddii cudurdaar ka soo dhaxgalo dhima laha markuu ku dhamaadaad meesheedii ka bilaabaysa. Qofkii aan akhrisan karin wuu dhageysanayaa xilli alle xilliga adiga aad haleeli karto umbaano kuu fudud yacni ma jiraan waqti go'an haddii aad casarkii dhageysan karto duhurkii habeenkii subaxii aad akhrinaysid aad dhageysanayso waqti lagugu xiraayo ma jiraan tiro go'an ma laha laakiin inaad badisaa kugu wanaagsanood in muddo ah wado Ilaahay wuu kugu caafin doonaa dadaalkaas ma guul dareysto. Qisooyin badan baa laga sheegay iyadana suuratul Baqara oo sida hadda aan sheegnay qofka uu iskugula tacaalo inuu isbedel ku heli doono aad iyo aad uu u mahdiyo. Qisadan juz'amaha
ku saabsanna qof ku caafimaaday baa nala wadaagay. Waxaa idinkana idin rajaynaynaa inuu Ilaahay idin aqbalo, idinku caafiyo.